Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Walaalayaal kusoo dhawaada cashirkeeni. Insha Allah tacaala caawa cashirkeeni waxaan kaga hadli doonaa sida loogu xayeysiiyo bannerska. Banners waxaa loo yaqaanaa xayeysiintan sawirada ah oo boorarka ah. Boorarka sida wax loogu xayeysiiyo internetka ayaa insha Allah ka sheekay doonaa. Waxaa laga yaabaa marka magaalada aad maraysid inaad aragtid magaalooyinka oo kale jidadka oo kale inay boorar xayeysiimo ku dhagan yihiin. Boorarkaas weynka xayeysiimaha ku dhagan yihiin billboards aa loo yaqaanaa. Isla ayagaas oo kaleenta ayaa internet online-ka lagu sameeyaa. Marka insha Allah tacaala sida boorarkaas internetka loogu xayeysiiyo ayaan insha Allah baran doonaa. Waxaa loo yaqaanaa banners ayaa loo yaqaanaa. Insha Allah tacaala marka cashirkeena caawa wuxuu ku saabsanaa doonaa banner advertisement. Sidee boorarka loogu xayeysiiyaa internetka. Tusaale ahaan adiga xayeysiintaada boor ahaan sidee ugu xayeysiinaya adoo isticmaalaya online. Hadda aniga ma isticmaalayno offline oo hadda boor kuma dhejinayno wada dhinaceeda. Laakiin hadda waxaan rabnaa inaan isticmaalno banner ama boor. Xayeysiimaha waa aragtay inta badan oo website-ka geesaha ka taalo waa arki doonaa. Xayeysiimahaas meesha yaalo ayaa waxaa loo yaqaanaa banners. Sawiradaas meesha yaalo oo haddaa sawirka ku dhufatid ku geynayo linkiga uu la socdo oo ku geynayo website-yada. Marka sida loogu xayeysiisto bannerskaas ama nativeskaas ama waxyaabahaas ayaan insha Allah caawa ku sharxi doonaa cashirkan. Insha Allah tacaala cashirkeen insha Allah tacaala waa aad u soo koobi doonaa sababtoo ah waxaa jiro website-yo cashirkii afraad aan kusoo qaadanay insha Allah tacaala. Cashirkaas website-yadaas waxaa waaye aad uma sii guda gali doono ilaan waqti dheer ayaan ku bixinay cashiradaas. Cashirka afraad ayaa ka doonan doontaa qaybta ugu dambeysa waaye. Marka insha Allah tacaala waxaan kusoo gudbi doonaa waxyaabaha istiraatiijiyooyinka aadka ugu muhiimsan ee qaybtan aan ka baran doono sida loogu xayeysiisto bannerska ama boorarka sida wax loogu xayeysiisto ayaan insha Allah cashirkan ku sharxi doonaa. La soco. Insha Allah tacaala waxa ugu horeeya horta ugu muhiimsan waxaa waaye creating banners golden tips. Bannerska marka aad sameysanaysid tusaale ahaan marka affiliate marketer aad tahay shirkadda aad markaas wax u xayeysiinaysid waxay ku siinaysaa wax loo yaqaan marketing tools ku siinaysaa. Marka shirkadda wax u xayeysiinayso waxay ku siinaysaa banners diyaarsan ee jiro oo ay ku diyaarinayso ay ku siinayso. Wax walba waxaa waaye way ku diyaarinayaan. Marka waxa ugu muhiimsan waxaa waaye marka bannerskaas shirkadda oo kaleenta gadaal ku sheegi doonaa inaadan isticmaalin adiga. Sababtoo ah bannerskaas diyaarsan ee shirkadda ay sameynayso qof walba oo shirkadda ah ayaa isticmaalayo. Marka YouTube marka website-ka internetka meel aad wax ku xayeysiin aad maagtid waxaa laga yaabaa meel kasta inay kaaga soo horbaxayaan bannerska ama boorarka. Marka inta badan qofka waxaa fiican oo super affiliate marketer-ka ah inuu boorar asiga u gooni ah u sameysto. Marka waxaan rabaa insha Allah tacaala boorka aad sameysanaysid waxa aad ku qoraysid iyo nooca uu ekaanayo insha Allah tacaala inaan kuu sheego. Marka tipskan iyo faa'iidooyinkan iyo waxyaabahan ayaan insha Allah kula wadaagi doonaa. Okay. Don't take the vendor's banners. Horta waxaa waaye mid koowaad oo ugu muhiimsan inaad ogaatid tan waaye. Marka shirkad iska diiwaan gelisid wuxuu ku sii doonaa banners diyaarsan. Bannerskaas diyaarsan ha isticmaalin, ha qaadanin. Sababtan ku leeyahay waxay tahay haddaa isticmaashid kuwaas waxaa shirkadda laga yaabaa in dad badan ay u xayeysiiyaan kumaan kun, tobanaan kun. Kii haddaa isticmaashid macnaha dadka waxaa ka duwan tahay male. Marka waxaa laga rabaa dadka inaad ka dugnaatid. Banners oo qurux badan oo kaliya ku khaas ah unique ku ah ayaa loo baahan yahay. Marka banners shirkadda ay ku siiso ama boorars shirkadaha ay bixiyaan oo xayeysiinta ay ugu talagashay in lagu xayeysiiyo waxyaabahooda marnaba ha isticmaalin taas niyadda ku hay. Mid adiga ku gooni ah unique ah raadso. Inta badan shirkadaha xayeysiinta loo doonto marka bannerka u dhiibto waxay ku leeyihiin bannerka mar walba aragnayna u wad. Taa way ku diidayaan xayeysiin kugu sameeyaan. Laakiin banner cusub marka u keento shirkadaha hataa xayeysiinta way ka qaadanayaan way ku aqbalayaan. Dadkana waxay arkayaan waxan inay wax cusub yihiin way ku xiiseynayaan. Laakiin wixii oo intaasoo kun mar la arkay haddaa u keentid dadkii kuma xiiseynayaan mana kugu soo biirayaan oo xayeysiintaada micno uma yeelanayso. Marka waxa ugu weyn oo ugu horeeya waxay tahay vendor-ka ama qofka iska leh badeecada banners uu dadka siinaa marketing tools ayay ka mid tahay. Wuu ku siinaa wuu kuu diyaarinaa. Wuxuu ugu talagalay dadka caajisoolayaasha ah oo waxaan dhan rabin oo culayska dhan is saarayn inay isticmaalaan uu rabaa. Marka adaa isticmaalin kuwa cusub adi raadso sameysa adiga meesha laga samaystay waxaa soo sheegi doonaa. Qasab ma in aad samaysatid ilaa adiga aniga waa
waa 5 sano ku guda jiraa mana samaysto meelaa ka samaystaa. Okay, adi meel ka samaysto kas yar lacag iska dhiib ayadoo qurux badana lagu sameynaa. Okay, labo, creating banner that grab customers attention. Waxaa lagaa rabaa bannerka ama boorka aad samaysanaysid muhiimadiisa ugu weyn dhan waxaa waaye qofka customerka ah ee website-ka ama internetkaas wax ka fiirinayo oo xayeysiintaada arkaayo inaad soo jiidatid attention-kiisa ama waxaa kusoo jiidanaya waa sheegi doonaa waxyaabaha lagu soo jiito hoosa ku sheegi doonaa. Marka guud ahaan bannerka ama boorka aad isticmaalaysid hadafka ugu weyn oo laga leeyahay waxay tahay qofka macaamilka ah inuu attention-kiisa ama dareenkiisa uu soo jeediyo. Taasaa ugu muhiimsan. Okay, sidoo kaleente waxyaabaha waa ku dadaalaysa waxaa waaye use plain text with black font and white background. Inta badan boorarka markaa arkaysid waxay isticmaalaan background cadaan ah iyo far waaweyn oo qad madow ku taalo. Micnaha qofka far madow markuu arko iyo maxaa la ii sheeg white board ama maxaa la background oo cadaan ah qofku wuu soo jeesanaya. Qofka waxaa laga yaabaa far waaweyn meel ku qoran markuu arko fartaas waaweynka waxa oo maxaa la xayeysiinayna ay yihiin wax micno leh oo psychological ahaan oo maxaa la ii sheeg aa kusoo jiidanaysid qofka attention-kiisa aad iyo aad ayuu u daneynaa. Marka waxaa isticmaashaa waa soo sheegnay landing page marka la isticmaalayo boorka waxa lagu qorqorayo the hook waaye. Landing page-ka lagu dhigmaa boorka waxaa ku dhex qoraysid. Okay, marka laakiin farta aad ku qoraysid aa lagu sheegaa far waaweyn ah oo font size-kooda waaweyn yahay black ah white background-na lehna isticmaal. Inta badan waxaa isticmaashaa use weighted images aad u qurux badan oo kalarada nooc badan leh isticmaal. Kalaradana ku jiro isticmaal weighted images muhiim waaye sababtoo ah hadda tusaale ah kalarada oo kaleente maxaa la ii sheeg cagaarka, guduudka, kalarada isticmaal sida qofka attention-kiisa u soo jeedisid. Qofka attention-kiisa waxyaabaha soo jeediya kalarada ka mid ah marka kalarana isticmaal. Sidoo kale waxaa isticmaashaa ugly strategy. Ugly strategy waxaa loo yaqaanaa tusaale ahaan waxaa dhahaysaa huuga ama maxaa la headline-ka meesha aad ku qoraysid oo farta waaweynka ah waxaa dhahaysaa tusaale ahaan waxaa waaye waxa ay iibinaysid oo kaleente camal waxaa waaye health macnaha caafimaadka iyo waxyaabahaas ka hadlaysaa product-gaaga. Tusaale ahaan waxaa dhahaysaa 5 foods that kills you if you eat mitaal oo kale 5 cunto oo haddaa isku cuntid ku dili doonta camal. Waxyaabahaas qofka wuxuu isleeyahay maxay tahay waxa i dilaya 5 cunto maxay yihiin qofka dareenkiisa wuu soo jiidanaa qofka wuxuu leeyahay waxaan i dilaya maxay yihiin fiiri bal. Tusaale ahaan waxaa dhihi kartaa 5 magaalo oo inaad booqatid inay tahay intaadan dhimanin camal. Wuxuu isleeyahay walaa 5 magaalo maxay yihiin camal. Macnaha qofka waa soo jiidatay. Tusaale ahaan waxyaabaha noocaas aa la ugly strategy. Okay, qaybta ugu dambeysa waxaa waaye muhiimadda bannerska waxyaabaha muhiimka inaad ka ogaatid. The purpose of the banner is to click the ad, not buy the product. Muhiimadda ama hadafka laga leeyahay bannerka ama xayeysiintaas boorka ah oo online-ka loo isticmaalo waa qofka inuu maxaa la ku qanco dhaqsiyo oo dhaho waxa maxay yihiin bal fiiri. Tusaale ahaan waxaa dhahday 5 cunto haddaa isku cuntid ku dili doonto oo kale haddaa dhahday qofku wuxuu leeyahay maxay tahay 5 cunto bal fiiri. Kligaas uu ku siiyey meesha bannerka shaqadiisa wuu qabsaday. Bannerka muhiim maaha inaa wax uu ninkan gato. Muhiimaddu waxaa waaye inuu attention-kiisa soo jeediyo oo qofkan uu ku qasbo inuu dhaho war bal waxa maxay yihiin fiiri. Halahaas ugu muhiimsan. Marka bannerska noocaas waaye intaas tips ama maxaa la intaas waxyaabood aan kaaga sheegay ku dadaal. Waxa ugu muhiimsan waxaa waaye ha isku qaadanin kuwa oo shirkadda ay ku siiso adiga kuwa gooni ah raadso. Attention-ka ama customer-ka attention-kiisa ama dareemihiisa inuu soo jiidanayo ku dadaal. Waxaa isticmaashaa far waaweyn oo madow ah iyo white color black iska isticmaal. Inta badan image isticmaal oo kalarada leh. Sidoo kale waxaa isticmaashaa headline oo qofka soo jiidanayo weighted ugly strategy isticmaal. Sidoo kaleente waxaa ogaataa muhiimadda laga leeyahay barnaamijka ama bannerka ama boorkan laga leeyahay dhan inayba tahaybo qofka macaamilka ah inuu click ku siiyo meesha. Maahan inuu gato muhiim maaha. Inuu click siiyo oo landing page-kaada arko ayaa muhiim ah. Marka intaas waa muhiim. Okay, sidoo kaleente where to advertise. Okay, bannerka intee ka samaystaa gadaalan ka dhiganaa laakiin waxaa rabaa intee advertisement-iga ula aadaa. Marka intaan advertisement-iga aanan sheegin waxaa fiican intee ka soo samaysanaa taasaa ka horeyso. Okay, qaybtan koowaad aan galaynaa intee ka samaystaa. Where can I create my banners? Waxaa ii sheegtay tusaalaan Ibrahim inay dhahday midka diyaarsan ha qaadanin. Okay, sax waaye midkaas diyaarsan dad badan wada wataan.
marka adiga waxaan kaa rabaa mid unique inaad qaadatid adiga. Sidee ku samaysanaa marka mid unique ah? Midka unique waxaa ku samaysan kartaa waxaa aadaysaa meelahaas kuu muuqdo website-yadaas ayaa lagu sameeyaa. Website-ka koowaad waxaa lagu dhaqaanaa fiverr.com, midka ku xiga upwork.com, peopleperhour.com, freelancers.com, guru.com, $20banners.com. intaas source-yan ku siiyo intaas source aad waa kasoo hadalnay website-yadan sida u egyihiin iyo waxaas waxaa aadaa lesson 4 aad cashirka afraad aad oo course-kan imtixaanaha ah marka ka hadlayna sida website-ka loo design gareeyay iyo dadka ku design gareynaya meesha aad ka helaysid marka isla ayagila waa isla ayagana ka heli kartaa meeshan halahan intaan oo kale waxaa kaloo ka heli kartaa logooyinka sida loo sameeyo meeshan waa ka heli kartaa lacag weliba aad u yar lagugu sameynaa logooyinka sidoo kaleente haddaa u baahan tahay web page ama YouTube in lagu qurxiyo kaleente ama maxaa leeyahay intro lagugu sameeyo kale meelahana imaanaysaa adii xirfadaha series-ka dhan oo maxaa leeyahay dadaa u diyaar ah lacag yarna kaa qaadayo marka website-yadan waxaan ku sheegnay ayagoo sharaxaadooda 100% ah lesson 4 ma rabo inaan waqti badan kusii dhumiyo marka meeshaas ayaa ka doonanaysaa marka waxaa waaye banners ayaa meesha ku qoraysaa qaybta kore oo search-ga ah marka waxaa kusoo baxaayo 10 qof hadda 10 ka badi 20 sodomeeyo qof oo diyaar ku ah inay banners ku sameeyaan marka booqo website-yadan halkaas ayaad ka samaysan kartaa banner adiga kuu gooni ah ama boor adiga kuu gooni ah okay boorka markii lagu soo sameeyay intee ku advertise gareynaa marka muhiimadii taas waaye okay aan usoo laabana qaybta marka where to advertise intee lagu xayeysiinaa bannerka marka 3 meel ayaan kuu sheegi doonaa oo muhiim ah qaybta koowaad waxaa waaye waxaa ku advertise gareysaa ama waxaa ku xayeysiinaysaa macnaha meesha marka intee ku xayeysiinaa waxaa laga wadaa intee ka helaa macaamiil intee ka helaa waa macnaha macaamiishii oo maxaa leeyahay boorkan aa hordhigi lahaa intaas milyan intaas oo kun oo qofood meesha hordhigi lahaa intee ka helaa meesha aad ka helaysaa insha Allah tacaala kuu sheegaa meesha ugu horeysa waxaa waaye affiliate marketing platforms macnaha affiliate marketing-ka shirkadaha waaweynka oo affiliate marketing-ka bixiyo ayaa inta badan dad badan iskugu imaado marka dadkaas badan oo crowding-ka ah ayaa insha Allah tacaala aad kaga faa'iideysan kartaa okay misaalaan raba marka inaan ka bixiyo affiliate marketing-kaas ila soco tusaale ahaan marka affiliate marketing-ka ugu koowaad waxaa kamid ah okay waxaa kamid ah clickbank ayaa kamid ah tusaale ahaan waxaa laga yaabaa clickbank inuu kuu muuqanin dhici karto clickbank ayaa kamid ah ma rabo inaan waqti kaaga sii dhumiyo clickbank ayaa kamid ah sidoo kaleente waxaa kamid ah clickbank ayaa kamid ah waxaa kalootoo kamid ah JVZoo aa kamid ah waa booqan kartaa website-yadaas waa kasoo hadalnay wax badan ayaan kaga soo hadalnay waxaa kamid ah clickbank ayaa kamid ah JVZoo aa kamid ah waxaa kaloo kamid ah haddaan inta kugu cadeeyo waxaa laga yaabaa website-yada aad ka heli kartid oo aadi kartid waxaa waaye clickbank.com ayaa ka raadsan kartaa sidoo kaleente jvzoo.com sidoo kale waa ka heli kartaa meeshaas ayaa aadaysaa qayb waxay leeyihiin contact us ayay leeyihiin contact us-kaas ayaa la xiriiraysaa hadda clickbank oo kale wuxuu leeyahay meel dhahayo advertise toos advertise-ka u aadaysaa laakiin JVZoo oo kaleente contact us ayuu leeyahay waa la xiriiraysaa waxaa leeyahay bannerkan aan wataa inaan ku xayeysiisto ayaan rabaa okay sidoo kaleente qaybtan kale waxaa kaleento aad ku leeyahay oo aad CG affiliates isagana ka muhiim waaye affiliates saddexdaas meelood ayaan xooga saaraysaa saddexdaas website tag affiliate marketing platforms lahaa saddexdan meel ayaa ku xayeysiisan kartaa dad badan ayaa iskugu imaado marka ka faa'iideyso saddexdan website okay sidoo kaleente blogs-ka sida loogu faa'iideystaa blogs-ka Google-ka ayaa tagaysaa marka Google-ka aad tagtid waxaa ku qoraysaa tusaale ahaan lose weight tusaale waa kan blog oo kale ku qoraysaa marka blogyo badan oo kusoo baxaayo blogyadaas meesha ku yaalo website-yadaas meesha ku yaalo ayaa ku dhufanaysaa qayb waxay leeyihiin contact us nala soo xiriir ayay leeyihiin contact us-kaas ayaa maxaa lahaye kala xiriiraysaa qofka blogga iska leh waxaa leedahay aniga blogan inaa waxaan ku xayeysiistaa rabaa ku xayeysiisan karaa wixii shuruud iyo waxaas iyo isku fahantiin sidaas ayaa ku kala qaadanaysiin
kadib hadduu kuu ogolaado wuu kuu ogolaanaa, hadduu kuu diidana meel kale ayaa ka raadsan doontaa. Marka muhiim ah blogyadana waa lagu xayeysiiyaa. Marka blogga maxaa la ii sheeg niche-ka blog lee raacinaya. Tusaale ahaan weight loss blog, make money online blog, tusaale ahaan make money online blog saasaa raacinaya. Kadib blogyo badanaa kusoo baxayo, blogyadaasaa ku dhufanaysaa, gudaha galaysaa, qaybta contact as qofka blogga iska lahaa la xiriiraysaa, waxaa dhehaysaa waxaa rabaa inaan meeshaan wax ku xayeysiisto, waxaan wataa bannerkan ama boorkan aan wataa, okay tamam waa is afgaranaysiin. Kadib maxaa la ii sheeg meesha ayaa ku kala qaadanaysaan. Hadduu kuu ogolaado sidaas ayaa uga xayeysiisan kartaa. Ma rabo inaan videoga dheereeyo ama wax badan sheego, waxaa rabaa oo kaliya istiraatiijiyada inaan kuu sheego. Qaybtan kaleeto major native adska waxaan kuu sheegi doonaa 2 meel oo ugu muhiimsan ayagane. Kow waxaa aadi doontaa meeshaan loo yaqaano buy and sell ads.com. websitekaas website weyn waaye. websitekaas ayaa ku xayeysiisan kartaa. maxaa la ii sheeg inta badan wuxuu qabtaa adeegyadan oo maxaa la ii sheeg boorarka xayeysiimo ayuu qabtaa. websitekaas gal iska diiwaan geli, free waaye. Kadib maxaa la ii sheeg bannerska iyo waxyaabahaas lagu xayeysiiyaa, waxayna dadka ka qaadaan pay per click waaye. click oo lagu siiyo ayaa lagaaga goosanaa, waan kasoo hadalnay. Okay, sidoo kale websiteka labaad oo aan ku talinayo waxaa loo yaqaanaa rough content yaa la dhahaa. rough content-na isagana aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay markii la joogo advertisement-ga qaybtan weliba ah bannerska. Marka insha Allah tacaala ma rabo inaan war badan sii galo. bannerska waxyaabaha aadka iyo aadka waxaa waaye oo inta badan lacagta loogu faa'iido ama loogu helo xayeysiinta badan, lacagaha badan loogu helo waaye. Inta dadka badan aad uma fiiriyaan, laakiin haddaa adiga ku dadaashid waxaa laga yaabaa inaad wax badan aad ka heli kartid. Sababtoo ah malaayiin qof, intaasoo qof ayaa hordhigaysaa bloggaaga, bannerkaaga ama boorkaaga. Dadkaas marka waxaa waaye haddii bannerkaaga ama maxaa la ii sheeg boorkaaga uu yahay mid aad u qurux badan, far waaweyn ku qoran yihiin, waxaas dhan aad kasoo waxaystay, hadalka hooga meesha ku qoran uu soo jeedinayo qofka attention-kiisa, dadkan maxaa la ii sheeg xayeysiinta aad soo hordhigaysana ay yihiin dadkii saxda ahaa. Kama hadlayno aniga 2 niche oo kala duwan lagama hadlaayo. Caafimaad hadduu yahay waxaa qasab ah blog caafimaad inaad ku xayeysiisatid. hadduu maxaa la ii sheeg blogga uu yahay make money online oo kale ama sports oo kale uu yahay, ama haddii kale dhar lagu gado oo kaleente, wax kasta ha ahaadaan. Adiga muhiimadda waxaa waaye dadka audienceska meeshaas ku aruursan iyo productiga adiga aa haysatid ma ismatch garaynayaan oo ma isku qalmaana la fiirinaa. Haddii isku qalmaan oo intaasoo dhan aad soo raacdid oo maxaa la ii sheeg boor fiican u keensatid oo soo jiidanaya attention-kooda, oo maxaa la ii sheeg ugly strategy-na wato, wax walba aad kasoo baaran degtay, oo haddana adiga aad soo samaysato mid inta badan oo website-yada u yaala uusan ahayn oo adiga kuu gaar yahay oo unique kuu yahay, waxaa wax badan oo waxaa helaysaa click badan ayaa helaysaa, dad badan ayaa wax badan kaa iibsan doono. cashirkeena insha Allah tacaala caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi